السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب يوتيوب كسلامتي معي وعد فتح ما أنتم مقالكم waxaan u hadli doonaa qaabka loola soo dego WhatsApp ugu fiican ee lagu isticmaalo taleefanada Android-ka WhatsApp-kaas ayaa runtii maanta sharxaynaa qaabkuu yahay iyo waxyaabo uu ka kooban yahay marka ma doonayo inaan muuqaalkan idin kordhaco ee ku soo dhawaada muuqaalka balse intaan muuqaalkan bilaan ka hor haddii aad markuu horeys aad daawanayso channelkan fadlan subscribe saar furana gambaleelka si aad u fushid muuqaal walba cusub oo halkan soo gelino okay markuu horeys waxaan arki doonaa qaabka loola soo dego linkiga qaybta description-ka tusaale ahaan oo kale hadduu yahay muuqaalka aad daawanayso dhag ayaa siinaysaa then waxaad ku dhufanaysaa linkiga waxaad ku soo furaysaa Google Chrome-ka ama UC browser mid kugu jiro soo markuu qaabkan kuu soo qabto waxaad ku dhufanaysaa submit ayaa taabanaysaa then submit markii aad taawatid waxaad sugaysaa 5 second oo shaashada ku qoran soo markay 5 second dhamaato waxaad ku dhufanaysaa double tap ku dhufanaysaa hoos ay soo degaysaa generator then click to taabanaysaa soo click markii aad taawatid ay wuxuu ku soo qaban doonaa meel qoranta hoos continue soo continue aad dhehaysaa markii aad ahaydna wuxuu ku tirinayaa adii dhowr second ilaa 5 second 5 second markay dhamaato waxaad ku dhufanaysaa get link aad ku dhufanaysaa oo wuxuu ku geenayaa toos ayuu link ku geenayaa soo waxaad taabanaysaa halkaas cagaaran ee ku qoran tahay download aad leedahay soo download markaad dhahdid waxaad dhehaysaa okay aad leedahay oo qaabkaas ayaad kula soo degaysaa soo ana mar inaan soo dejiyo oo waa kan igu jira soo markii haddii aan u galno gudaha aan faahfaahino waxaad samaynaysaa waxaad soo furinaysaa WhatsApp-ka then aan aragno okay qaybta wareys haddii aan ka fiirino qaybta status-ka waa kan aragtaa tusaalahan karto markaad rabtid inaad muuqaal soo dhigtid oo daqiiqadiisa fara badan yahay waxaad ku samayn kartaa inuu jarjarmo oo daqiiqad 30 second isku jira ayuu sameynayaa soo hadda waa kan muuqaalkan 2 daqiiqo dhowr second socona ayaa soo geliyay asaga ayaa qayb isku jira waad aragtaan mar walba qayb ayuu dhigaa then haddii aan galno settingska GB settings markaa ku dhufano privacy and security ku dhufanaysaa then wuxuu leeyahay freeze last scene oo qofka aad ka qarsan kartid xilli kugu dambeeyay isticmaalaysa WhatsApp-ka sidoo kale wuxuu leeyahay contacts-ka waxaad samaynaysaa waxaad ka qarsanaysaa blue tick iyo recording iyo typing aad ka qarsanaysaa sidoo kale wuxuu leeyahay ayadana who can call me ay meeshaas waxaad ka dhigi kartaa nobody ama select contacts ay dhehaysaa soo cidna kuma soo wacaysa ilaa adiga ka qaadid soo sidoo kale wuxuu leeyahay disable forwarded message markii lagu soo diro oo forward adina qof rabtid inaad ka qaadid forwardkaas ayaa disable iska dhehaysaa sidoo kale wuxuu leeyahay anti delete messages oo meesha u jeedinayo qoran oo qof hadduu message kuu soo diro ma delete karo ilaa aad ka aragtid mooyaane soo qaabtaas waa furinaysaa haddii aad u baahan tahay sidoo kale wuxuu leeyahay hide view status oo qayb cajiib ah runtii qof inaad status aragtid adigoon uusan listiga magacaada uu soo galin meesha sidoo kale wuxuu leeyahay anti delete status oo qofka status mar soo dhigo hadduu delete xataa waad arkaysaa sidoo qaybta ugu cajiibsan wuxuu leeyahay security wuxuu leeyahay fingerprint iyo button iyo uu leeyahay soo ani fingerprint-gaas ay igu xiran soo haddii aan ka baxdo waa kan fingerprint ay taabanaya oo waa kan qaabkaas ugu shaqeyn sidoo kale meeshaas wifi-ga u jeedid waxaa saaraysaa istilaab ayaa saaraysaa haddii aadan rabin in lagu soo diro wax fariin ah adigoo WhatsApp-ka ku jiro isticmaalaya online soo ani hadda istilaab ayaa saaran oo qof fariin ii soo diraysa malahan haddii aan ka qaado oo fingerprint-ga ayaan security ayaan ka furayaa then waa ka istilaabka ka soo qaado oo qofkii rabo ayaa message soo diray markaas soo waa runtii qayb cajiib oo aadina ku isticmaali karto soo waanta waxaan rabaa inaan muuqaalka intaa ku soo inta muuqaalkiisa ku runtoona assalaamu calaykum waraxmatullah